قدر علي حسن وأباها دلي أفر قبلود أو فالكوفسي لوجو جستي دقمة الضيني لا قبل كبنادر قدر أو كوسوغان دالك كونفور أفريكا أيام تي في وحا وشيغي إن قبليه سوءات ويرير فالحماة لغلق عاي إسلام مركان أو فالكاسي جستي نين أدادي سكو شيغي إن أي هاد اللحدنجير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقى قدر علي حسن جوا كيب تاون سود أفريكا أحنا دبناها قبليه سلوك كوفصدي دقمة الضيني لا كوفصدينا اللي يرادو عبد الله عبد القوبي أو اللحدنجير ninkaas oo ugu yaraan aniga laba mar dhali karo macna sidoo kale qadar ayaa sheegay in gabadha ugu weyn gabdhaha falka kubsiga loo geystay ay tahay 9 jir mid ugu yarna ay jirto 4 sano iyo bar gabdhaha ninkaasi uga kufsaday mid koowaad waa 9 jir laba ka xigto mataana waa 7 jir mid ugu yarna waa 4 iyo bar jir qof kasto oo muslim ah oo Soomaali ah oo ubad dhalay oo garan kara in la baabiyo qoyskiisa gabar 9 jirto ama 4 jirto ama 7 jirto qof no waxa uu xusay in ninka falkaasi u geystay caruurtiisa gacanta ay ku hayaan maamulka degmada Dayniile ayna socoto qorshe ay wadaan xildhibaano iyo odayaal oo lagu sii deenayo ninkaasi niman baa raba inay qaab qabiil lacag u dhiibaan ay soo deeyaan warkaas maqlaaya qadar ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka codsaday in ninka falkaasi kula kacay caruurtiisa talaabo sharci ah ay ka qaado sidoo kale waxa uu sheegay in hooyada dhashay caruurtaasi markii ay maqashay in caruurteeda falkaasi lagula kacay ay mir daboolantay isla markaana ay haatan ku jirto xaalad caafimaad oo adag waxa uu dawladda ugu baaqay in ay wax ka qabato arrinkani dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha booliska واحد باريستا أي هذا تان وكجرو حبسيودا قبله إنه بهاي عدالة because ودنا وحنا كلا سوتي قالوا وعن سلا ودك أولادتي حمر أكون بتقوان أكون أولادان دتكو ده برتان لكن هذا وحنا أركايا نيل إحنا نجرأ أو أنا جا لما مرة قال كرو إنه قبله فرحمي لقنا أمسين عدد عن أوجه هنا إليين ما سمين واسمين نماي هو إلهي كعب صدا قبيل إسكدافة والله يبقى أنا أقول صهر مرة معي نكاس إنه قف عصام سمين nin jarimo geesto waay nin qaatilo waay nin gabdhiga baabiyi waay aniga waxaan codsanayaa cadaalad aan codsanayaa lacag ma rabo macnaha dhaqaale ma rabo dadka lacagta iyo qabiilka u socdana ilaahay ha uga cabsan ayagu gabdho u joogan baritan ay haysto mid limada ku dhici karto ilaahay ka cabsan aniga waxay hadalkayga uu yahay cadaalad aan rabaa billahi tawfiiq si kastaba ha ahaatee dhacdooyinka kubsiga ee loo geysanaya caruurta ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku sii kordhayeen guud ahaan dalka Soomaaliya iyadoona dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir kaasi oo lagu kacay gabar 5 jir ahayd isla markaana oo fal kubsi u geystay nin da'diisa lagu sheegay inay 3 jir ahayd